الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدني صدحات دروس تاني بش رمضان دردارنكي أن راعيني بإذن الله تبارك وتعالى. الثوابت الإيمانية إيمانكو وحولي وحياة الصغن وحاكمة الإحسان إلى الناس إن ددك الله سمفرو waxaad arkaysay bisha ramadaan dad badan oy ka muuqdeen calaamaadka ama muuqaalka karamka iyo deeqsinimada bisha ramadaan, laakiin haddii uu dhammaado waxaad arkaysaa dadka qaar oo fuqarada markay arkaan wejiga u ururinaya, bakhaylnimaduna ay ka muuqanayso. macnuhuna sidaa ma eh, waxaa la rabaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu nagu manaystay infaaqa alfuqaraa walmasaakiin iyo wujuuda khayrka wanaagsanba ramadaan iyo khayru ramadaan waa la rabaa in la sameeyo. bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan rasuulku inuu yihi sala allahu alay wasalam, maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbuh, ma jiro qof idinka mid ah ilaa rabbi baa la hadlaya. bal u fiirsada, ilaahay baa la hadlay, walaysa baynahu wa baynahu tarjumaan, adiga rabbina cid idin kale tarjumaysay ma jirto. fayandura, marka aad la hortaagan tahay, qofku wuxuu fiirinayaa aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam, xagga midig buu fiirin, wuxuu hormarsaday keliya buu arkayaa. haddana xagga bidix buu fiirin, wuxuu hormarsaday keliya buu arkayaa. xagga horuu fiirin, naaru jahannamu arkayaa. rasuulku wuxuu yihi fattaqu nnaara walow bishiqi tamra, warhoy naarta iska ilaaliya, timir jeexeed ba allaha ka dhige iska ilaaliya. taa macnaheedu waxa weeye waxbixintu waxyaabaha ugu badan oo naaru jahannama looga badbaadiya naartay ka mid tahay. rasuulku mowqifka adag ee qofku allah hor joogo wuxuu dardaarmay in wax la bixiyo. waxaa kaloo iyadoo cajab badan rabbi inuu dardaarmo marka qofku haddii rajca in adduunka lagu celiyo uu jeclaan lahaa, wuxuu leeyahay lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin fa asadaqa buu leeyahay, ilaahay ow haddii dib la ii dhigi lahaa oo jaanis adduunka laysiin lahaa waxbaan soo baxsan lahaa. marka waxbaxsigu ramadaan kuma xidhna, mar walba qofka muslimkii waa ka waxbixiya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. thawaabidda iimaaniga ee sugan oon isbedelayn waxaa ka mid a qiyaamu leyl, habeenkii in salaad la tukado. haddaba ramadaan waxaa lagu fadila bifadli illaahi waraxmatihi salaada taraawiixda oo la isugu yimaado oo jamaaco lagu tukada ramadaankan tukanaynay, iyo qiyaamkii iyo tahajudkii. markii uu dhammaado waxaad arki dad badani iyagoo qiyaamkii oo dhan ka tagayn oo halkaa ugu dambaysay. salaatuleylkuna rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam, xadiid sheekh alalbani xasan ka dhigay, calaykum biqiyaami alleyli fa inahu da'bu saalixiina qablakum, warhoy laazima qiyaamuleylka yaan laga tegin, waa dadka saalixiinta dhaqankooda weeye oo idinka horreeyey. waa qurbatun ila allah, waana wax alla loogu dhowaado weeye. waana manhaatun can alithmi, xumaantana wax idinka reebo weeye. wa takfiirun lisayi-aati, sayi-aadka iyo dunuubtana mid idinka tirtira wey. bal u fiirso, qiyaamuleylkii 4 shay oo cajab badan baa lagu sheegay. 4 shay oo qiyaamuleyl habeenkii haddaad 3 ragcadood tukato waxaa tahay qiyaamuleyl biidni illahi tabaaraka wataala. weliba dadka haddaad cishaa'iga markaad tukato 3 ragcadood iska raacsato adigoonba weli seexanin, ilaan rasuulku abaa hureyraba wuxuu u dardaarmay inuu witirkiisa tukado intuunasan seexanin. qof aada u khayr jecela wuu ahaa, maca daalika rasuulku dardaarankaasuu siiyey marka inaad sadad ka baqda inaada sooba kacaynin, salaada cishaa'iga markaad tukataba ku darso oo horey 3daada u tuko, waxaa tahay qiyaamuleyl baad la timid. arrimahan 4taanaad heli doontaayo ogow. oo maxay yihiin? waxaa weeye horta waa da'bu saalixiina qablakum, dadkii inaga horreeyey ee wanaagsanaa waa dhaqankoodii, waa habeenkay kici jireen, waa kow. midda labaad waa qurba ilaahay baa loogu dhowaadaa salaatuleylka. waa xilli ummaddu ay hurdo oo samadu furan tahay oo suxuurtii wa bil asxaari hum yastakfiruun, suxuurtii xilligii ay ku jirto habeenkii 4tiisii saacadood ee dambe, oo rabbina uu yanzilu tabaaraka wa tacaala ilaa samaa'i dunya, ilaahay uu soo dego oo markaa dhahaya waryaa i weydiista wax, waryaa i baryaaya. markaas waa xilli alle loo dhowaada, iyaduna waa arrinta labaad. arrinta saddexaad waa manhaatun can alithmi, ithmiga iyo dunuubtii buu reebaayo. qiyaamuleylku
وشيء دنوب تيسونا الريبوي وبمعنى هدو قفكو قيام الليل أكعو وحون نقونا قف إلهي سبحانه وتعالى حقي سأجيد أيو نقن ولعل إنو سندنوبتي سيو مع سيدي سنة أيرا طبال الرجينية أرنت أفرادنا وتكفير للسيئات حمانت أيوب الترتراه حمانتي سميس إلهي با كترترية إن الحسنات يذهبن السيئات وناك وحو ترترا سيئات كترترية مركا إن شاء الله تعالى الرماها سولي مركا قيام الليلكو وأرن يسونا الثوابت هذا بقى قفكم مسلم كا قانتين تا أيا لو قرية ولو بالركعة واحدة ليلة يعني مركي لها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تدك قاروا هذه لتما حديث كلو صحيحة محوها يعني طبعا آيات روحي هبينكي كتو كذاي تدك غافلين تأكمل نقول معي الغفلة كمجرو hadduu 100 aayadood ku tukadana qaanitiinta dadkaas soo noqonaya marka ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna xifdiyo dad cibaadada si daa'iman Allah inaga dhigo jazakumullahu khayr barakallahu